بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkani waa channelkan YouTube-ka aynu ku leenahay National TV. haddii aad hore inoola joogin nagu soo biir oo channelka subscribe inoo saar. intaasina waa codsiye markana ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida. madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdilcasiis Laftagareen oo jidgooyo u dhigta doorashada xildhibaan Goodax Barre warbixin amuurtaasi ku saabsan ayaan faaqidi doonaa. hogaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe oo doorashada gada kaga adkaaday Maxamed Cabdilaahi Farmaajo sababtii ka dambeysay ayaa daawan doontaan. ra'iisul wasaare Roble oo ku fashilmay in uu ishor istaago magacaabista Cabdiraxmaan Dheere warbixin amuurtaasi ku saabsan ayaan idiin soo gudbinayaa. iyo taliye disho oo ka hor yimid in xilka laga qaado kana hadlay ujeedada laga leeyahay xilka qaadistiisa. qodobadii nagu soo kordho intaan ku guda jirno barnaamij wareedkayaga ayaan idinkugu soo gudbinayaa. ugu horreynse waxaan kaa codsanayaa inaad nagu soo biirtid oo channelka subscribe inoo saar, muuqaalkana leegaray oo share garay si uu u gaaro asxaab fara badan. intaasina waa codsiye. sidoo kale asxaabtii hore inoola joogtay iyana waan u mahadcelinayaa. markana ku soo dhawaada qodobadii aad hordhaca aad ku daawateen oo intaasi ka faahfaahsan. madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdilcasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo gaashanaya Farmaajo iyo Fahad Yaasiin ayaa shalay hor istaaga doorashada kuraasta Hoob 63 iyo Hoob 11 oo doorashadoodu ahaa in Talaadadii shalay doorashadooda ka dhacdo Beledweyne. guddiga hirgelinta doorashooyinka Hirshabelle ayaa sheegay in doorashada labada kursi uu u baaqday duruufo jira awgood isla markaana hal maalin dib loo dhigay, taasi oo ka dhigan in mar kale maanta loo balansan yahay qabashada doorashada kuraasani. sababta ka dambeysa baaqashada doorashada labadan kursi ayaa ogaanay in Laftagareen uu lahaa mas'uuliyadda ugu weyn maadaama isaga iyo madaxtooyada Soomaaliya ay doonayaan in shakhsi ay wataan loo xiro kursiga Hoob 63. Laftagareen, Farmaajo iyo Fahad Yaasiin ayaa kursiga uu baarlamaanka 10aad ku fadhiya Cabdiraxmaan Goodax Barre la doonaya Maxamed Daahir oo walaalo dhanka hooyo la ah madaxweynaha Koonfur Galbeed si ay ugu dhigaan gudoomiyaha golaha shacabka. Maxamed Daahir ayaa shakhsiyaadka gadaal ka riixaya ku wargeliyay in aysan muuqan rajo uu kursiga ku helo haddii tartan daahfuran la galo maadaama 9 musharax shahaadooyinka tartanka u qaateen baratanka kursiga 63. taasi waxa ay sababtay in cadaadis xoog leh oo ka yimid Baydhabo iyo Muqdisho la saaro taliska booliska ee qaabilsan amniga doorashada, kuwaasi oo hor istaagay in doorashada shalay ka dhacda xarunta gobolka Hiiraan ee magaalada Beledweyne. Farmaajo oo la sheegay in uu ka shaqeynayo sidii qof hawiye ah ugu dhigi lahaa afhayeenka golaha shacabka ayaa rumaysan in walaalka dhanka hooyo ee Laftagareen Maxamed Daahir oo xawaadle ka soo jeeda uu noqon doono dooqa la aamini karo. musharaxiinta kursiga Hoob 63 waxaa ku jira wasiirkii hore ee waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya Cabdilaahi Goodax Barre ka oo hore ugu fadhiyay isla markaana 2 sano ee la soo dhaafay si weyn u mucaaradaya kooxda waqtigu ka idlaaday. Cabdilaahi Goodax Barre, wasiirkii hore ee waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya, wuxuu hore u xaqiijiyay in madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed uu doonayay in qaar ka mid ah kuraasta taala Hiiraan loo xiro shakhsiyaad gaar ah. hase yeeshee Yuusuf Dabageed ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay hadalkaasi. ilaa iyo hadda 246 kursi ee golaha shacabka ah ayaa la doortay, kuwaasi oo 51 ka mid ah ay haween yihiin. kuraasaasi waxaa ka mid ah 4 kursi ee guddiga doorashooyinka ay hakisay doorashadooda. 29 kursi ayaana baaqi ka ah 275 kursi ee aqalka hoose. dhinaca kalena taliyaha qaybta 27aad Jenaraal Axmed Maxamed Cali Sowtare Disho oo la hadlay saraakiil ka tirsan ciidamada qaybta ayaa ka hadlay warar sheegaya in xilka qaadis lagu sameeyay. Jenaraal Disho oo kula hadlayay gelinkii dambe ee shalay magaalada Buulaburte ciidamo ka tirsan qaybta 27aad ayaa sheegay inaysan jirin wax dukumiinti ah oo xilka laga qaadayo oo soo gaaray, balse ay jiraan warar suuqa la soo geliyay. waxa uu Jenaraal Disho eedeeyay wararka suuqa la soo geliyay inay ka dambeeyaan mucaaradka dawladda
xildhibaano xilkooda waayay iyo dad doonaya in ay awood qaybsiga Hirshabelle ku dabaraan. Waxa uu Jenaraal Tareedisho xusay inay jiraan dad doonaya inay burburiyaan qaybta 27aad oo uu tilmaamay inay tahay qaybta kaliya ee ka howlgasha dalka ayna leedahay talis iyo saraakiil ciidan oo kala dambeeya. Jenaraal Tareedisho ayaa sheegay inay diyaar u yihiin in xilka ay wareejiyaan haddii si sharci ah loo soo maro, balse ay tabanayaan cadaalad darro. Taliyaha qaybta 27aad Jenaraal Tareedisho ayaa sheegay inuu taageersan yahay dowladda ayna soo gaarin weli wax dukumiinti ah oo qeexaya in xilka laga qaaday, haddii ay soo gaartana uu wareejinayo xilka uu hayo. Taliyaha qaybta 27aad ayaa sheegay inay jirto siyaasad lagu doonayo in lagu baabi'iyo taliska iyo qaybta 27aad. Maalmihii la soo dhaafay ayaa waxaa soo baxay warar sheegaya in xilka laga qaaday taliyaha qaybta 27aad iyo abaanduulaha ciidanka qaybta 27aad. Dhinaca kalena waxaa la filayaa in toddobaadkan dhexdiisa lagu dhawaaqo agaasimaha cusub ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA ee bedeli doona Yaasiin Fari oo xilkan u hayay si ku meel gaar ah dhowr bil. Agaasimaha cusub ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa madaxweynaha xafiiska sii jooga ee Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo Fahad Yaasiin u xusheen in ay u magacaabaan xildhibaan Cabdiraxmaan Dheere oo ah garabka midig ee Fahad Yaasiin. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa ku gacan saaray xubno loo diray si loo oggoleysiiyo in uu aqbalo magacaabista Cabdiraxmaan Dheere. Waxaana la sheegayaa in Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble uu cuskaday heshiiskii hore ay u gaareen isaga iyo Farmaajo ee dhigaya in madaxweynaha uu soo magacaabo qof la isla oggol yahay. Si kastaba, sida aan ogaanay, Villa Soomaaliya ayaa rumaysan in aysan jirin awood uu Roble kaga hor imaan karo magacaabista Cabdiraxmaan Dheere, marka laga reebo in uu muujiyo kaliya diidmo aan dhaafsiisnayn qoraal cambaareen ah. Hase yeeshee, haddii uu Farmaajo uu magacaabo saacadaha soo socda Cabdiraxmaan Dheere, waxa ay ka dhignaan doontaa tijaabo kale oo laga guuleystay Ra'iisul Wasaare Roble oo markii hore looga adkaaday in meesha laga saaro agaasimihii hore oo u magacaabay ee Bashiir Goobe. Xubno isugu jira xildhibaano, siyaasiyiin iyo dalaaliin siyaasadeed ayaa saacadihii ugu dambeeyay ka mira dhalin waayay oggolaanshaha laga helo Roble, taasi oo soo dejisay in Farmaajo iyo Fahad ay ku adkaystaan magacaabista Cabdiraxmaan Dheere. Arrintan ayaa la filayaa in uu khilaaf cusub dhaliso, balse iyada oo la filayo in madaxweynaha cusub la doorto 2 bil gudahood, waxaa suuragal ah in Ra'iisul Wasaare Roble iska sabro. Gabagabada barnaamij wareedkayaga ayaan isla soo gaarnay. Markana maamulka Celwaaq ayaa maanta shaaciyay inay diyaariyeen teendho loogu talagalay in lagu qabto doorashada 16 kursi ee deegaan doorashadooda ahayd magaalada Garbaharey. Maamulka ayaa sheegay in agagaarka garoonka diyaaradaha Celwaaq laga dhisayo teendho taasi oo lagu qabanayo doorashada 16 kursi, isla markaana ay gacanta ay ku hayaan ciidamada Jubbaland iyo kuwa Kenya. Arintani ayaa la aaminsan yahay xilli uu maamulka Jubbaland hore u shaaciyay liiska 16 kursi ee deegaan doorashadooda ahayd Garbaharey, uuna qorsheynayay in uu ku wareejiyo Garbaharey oo ka mid ahayd heshiiskii 17 Sebtembar. Sidoo kale waxa ay talaabadani imaanaysaa iyada oo madaxweynaha Jubbaland oo ku sugan yahay magaalada Nairobi uu halkaasi ka wado shirar uu la leeyahay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Kenya iyo beesha caalamka. Xogo aan helnay ayaa sheegaya in Axmed Madoobe iyo saraakiil ka tirsan dowladda Kenya ay ka wada hadleen sidii ciidamada Kenya ee ku sugan gobolka Jubbooyinka ugu qayb qaadan lahaayeen sugidda amniga halka ay ka dhacayso doorashada 16 kursi ee magaalada Celwaaq ee xuduudda labada dal. Haddii uu hirgalo qorshaha Axmed Madoobe iyo Kenya, ma jiro cid ka hor istaagi karto in amniga doorashada ay sugaan, maadaama ciidamada Kenya ay qayb ka yihiin howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM. Dhinacyo kala duwan oo Kenya ay hormuudka u tahay beesha caalamka iyo Axmed Madoobe ayaa doonaya in doorashada lagu qabto Celwaaq kadib markii ay caddaatay in aanan la tagi karin Garbaharey. Dhinaca kale, haddii doorashadaasi lagu qabto Celwaaq, waxaa fursad weyn doona musharaxiinta ay wataan Villa Soomaaliya, waxaana cad in musharaxiintaasi ka soo jeeda beesha Mareexaan ee mucaaradsan Villa Soomaaliya ay ku soo bixi doonaan
si kastaba Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa isku dayay in uu doorashada ku qabto deegaankan ay ku qanacsan yihiin dadka ka soo jeeda Gado, balse uu sidoo kale awood buuxa ku yeelan karo, wuxuuna Ceelwaaq u arkaa magaalo buuxin karta labadaasi shardi. Guud ahaan waa naga inta qodobadii aad ka daawanayseen channelka aan YouTube-ka aynu ku leenahay ee National TV. haddii aad hore inoola joogin nagu soo biir, sidoo kale asxaabtii hore aad baan ugu mahadcelinayaa. muuqaalkana share garee oo like garee qaybta hoose ee commentiga aragtidaada qurxoon inoogu dhaaf, iyana waa inoo muhiime. balse daawade waxaa inoo madala muuqaalkan kiisi xiga. Rabbi idinkii nabadgelyo.